أنا دلي بالأخص ولي بمركي لي هذا حقيقة آد بون جعله وسو تربية إلى كتاب كسان بري ما أنت مركا هدي إلهي سبحانه وتعالى لسوق جارسي إن عرورته أن أي قرآن وإلهي كتاب كيس أي دافعان wiilkii cali dheere ee isku qarxiyay godka jilacu muuqaal ay soo saartay kooxda khawaarijta ah ayaa soo bandhigtay cali dheere oo wiilkiisa la dardaarmaya xilli uu u socday magaalada muqdisho si halkaasi uu isugu soo qarxiyo waxa uu ka mid ahaa raggii galay godka jilacu ee dadku ku laayay si ay u soo daayaan maxaabiis kooxda khawaarijtu ay leedahay muuqaalkan oo la baahiyay xalay ayaa dadku aad uga yaabeen waxaana rabaa inaan kugula wadaago qayb ka mid ah qayb ayaan u soo bandhigaynaa laakiin qaybtan waa markii uu la dardaarmayo wiilkiisa isagoo ka sheekeynaya qaabka meesha uu u galay sida uu u go'aansaday inuu isqarxiyo sababihii ku kalifay iyo waxyaabo la yaab leh haddaba waxaan rabaa inaan kula wadaago muuqaalkan oo dhammaystiran ee bal marka hore ila daawo qaybta dambena xogo dheeraad ah ayaan kugu soo bandhigi doonaa الله سبحانه وتعالى ayaanu ku mahadinaynaa in maanta marka anoo ku qasbinin diinkii uu bartay iyo waxa way wixii uu akhristay ilaahay uu waafajiyay subxaanahu wa tacaala inuu asagu u soo baxo oo waxa way maxaa la yidhahdaa uu raadiyo ridaha ilaahay suu ku gaari lahaa inuu asagu raadiyo oo maanta waxa weeye marka isaga aanu sagootino isagoo rajaynaya ilaahay subxaana wa tacaala uu la kulmo soo raayada tawxiidka sito ilaahay diintiisa kor u sidee runtii waxa wax aad iyo aad aan ugu faraxsanahay marka waalidiin badan iyo carruurtoodu waxay dhinteen iyagoo gaalada garab taagan iyo gacanta mujaahidiinta ku baxeen waalidiin badan iyo carruurtoodii badaha iyo saxaraha ku dhammaatay annaga maanta waxaa farax ii ah marka haddii wiilkaygu uu ku baxo isaga oo kor u sida laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah naftiisana uu ku bixiyo ilah baan ku macelaynaa waxaa weeye waxaa noogu qaalisan aan bixinno wey waa beerkeenni wey sida ilaahay ku tilmaama lan tanaalu birra xataa tunfiquu mima tuxibuun waana hadda waxaa weeye waa taqaan waalid ugu jecel yahay awlaaddiisa laakiin waa hormarinaynaa limaada ilaahay baan dooranaynaa subxaana wa tacaala ilahay baan dooranaynaa saataas waa hormarinaynaa marka ilahay baan uga mahad celinayaa waafajiyey inuu shaqada u soo istaago oo waxa waye uu doorto bikhyaari anigana marka waa ku faraxsanahay waxa weeye maxaa la lahaa waa ugu ducaynaa ilahayna waxaan uga baryaa subxaana wa tacaala habaad iyo sugnaasho ilaa uu ka gaaro umniyadiisa iyo waxa uu jecel oo ah in ilaahay subxaana wa tacaala uu aqbalo oo raalli ka noqdo ilahayna waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala inuusan bihaystado fidmaynin oo anigana insha allahu tacaala sida uu shahaada u raadinayo ilaahay shahaada uga aqbalo uu siiyo biidni illahi tabaaraka wa tacaala wajazaahum allahu khayr waaraka asaga kolley jooga haddaan lagu qasbay oo lagu soo baxay irqaamiyey iyo hadduu asagu doortay isagaa jooga bal waxaa sidaa idinku sheegaa maanta ka hor xataa imu weydiinaya lama tashanin ma galaa ma soo iska dhaafa anigu waa dareesanaa xaaladiisa waa la socday laakiin asaga hal maalin xataa hee ima uusan dhihinin aabbahaye qadiyaase maxaa ka qabtaa ima u dhihin maxaa yeelay meel maanta xitaa dee wax la iska weydiiyey ma joogtaba cadawaa dhulkeeni haysta maalinta waxaa la joogaa waalidkii aan laga idan qaadanayn soo ma marka hadduu marka maanta doortay isaga marka anigana marka ilah baan ku mahad celinaya subxaana wa tacaala ilah baan ku mahad celinaya jalla wacala ilahina waxaan weydiisanaya subxaana wa tacala iga aqbalo yaan ilahay weydiisanaya subxaana wa tacaala waan ka baryayaa caza wajal habeen iyo maalinba inuu asagana waxa uu umniyadiisa gaarsiiyo anigana ilahay subxana wa taala iga aqbalo dhammaanteen ilahay subxana wa taala uu raalli ka noqdo walaalahan dhan meesha jooga waalidiinta ay ka soo tageen ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana uu ka aqbalo awlaaddoodaas soo baxda maanta ee waxa weeye naftooda kitaabka ilahay kor yeelaysa ilahay waxaan ka baryaa iyagana ilahay subxana wa tacaala
inuu ka aqbalo iyagana waxaan kula talinayaa inay waxa waaye ku farxaan ilaahay dartii haddii awlaadooda ay u baxeen ilaahay dartii haddii awlaaddoodii ay u baxeen iyagoo raayada tawxiidka sida markay istishaadkooda iyo maqlaan inay ku farxaan inay u duceeyaan inay raalli ku noqdaan maxaa yeelay adiga iyo isagaba waxaa waaye waxaad gaartaan waxaa ugu fiican ridaha ilaahay ee jannadiisa hadda asagu uu doortay adna haddaad raalli uga noqoto insha allah waxaan rajaynaa adigana inaad ridaha ilaahay ku gaarto marka waalidiintana si guud sidaasaan leeyahay inay ku qancaan ay ku sabraan cud kastana ilmaheeda ay ku tarbiyaysay kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala maalintay doortaan inay diinta ilaahay difaacaanna inaan waxaa aan la laxjecloonin ee la laxjecloodo kitaabka ilaahay lagu tumanaayo cirdiga muslimiinta oo la baabi'inaayo hantida muslimiinta oo la qaadanayo kufriga iyo gaalada iyo tansiirka lagu haayo ummadda muslimiinta inay taa ay fiiriyaan oo marka carruurtooda ay dooraan insha allahu tacaala haddana insha allahu tacaala محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته intaas kadib waa sidoo aabahayga idin sheegay yani ilaahay ayaan ugu madcelinayaa oo maanta isoo waafajiyey katiibadan katiibatul istishhaadiyiin igumana soo qasbin qof bini aadan ah qof bini aadanana kalama tashanin intaasba ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kala tashta alxamdulilah insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay godka jilcoona waa idinla tagi doonaa insha allahu tacaala meeshasana ayaad garab dagaalami cabdiraxmaan cali maxamuud raage oo ah ninka uu dhalay afhayeenku iyo sidoo kale rag kale oo mid ka mida uu yahay etoobiyaan halka kalena uu yahay tanzaniyaan iyo kuwo soomaali ah ayaa soo galay magaalada muqdisho kadibna qaab la yaab la ayuu ku tageen godka jilcow muuqaal dhammaystiran iyagoo halkaasi soo gelaya qaabka weerarka ay u geysteen waxaasoo dhan ayay sameeyeen ama soo bandhigeen waxaana kugula wadaagi doonaa muuqaalkeenna kan xiga laakiin arrinta la yaab kale oo dadku ilaa ay haatan ay la yaaban yihiin ayaa ah sababta ku kalifta ninkan wiilkiisa iyo sidoo kale dhallinyaradana inuu dabka ku shubo iyo sababta keentay inuu la soo muuqdo isaga oo la dardaarmaya waxa uu leeyahay anigu kuma qasbin waa jeclahay caruurteydan u jeclahay iyo waxyaabo la yaab leh laakiin taas waxaa ka daran in dad badan oo Soomaaliyeed ay shaki geliyeen in wiilkan isagu uu dhalay iyagoo aaminsan in caruurta uu dhalay oo waaweyn ay dalka banaankiisa gaar ahaan Yurub ku nool yihiin halka kuwa kalena ay yihiin kuwo yaryar oo aan dhammayn da'da ninkan la soo bandhigay ninkan waxa uu ka mid yahay caruurtiisa sida uu sheegay kuwa uu uga jecel yahay haatanna waxa uu horseeday in maanta uu qayb ka noqdo raggii 4 Oktoobar lagu laayay godka jilcow ee weerarkaasi geystay waxay soo bandhigeen muuqaalo xasaasi ah oo aan barnaamijyadeena dambe ku soo qaadan doono shirkada saaxiibada la wadaagay haddii aan ugu cusubtaan u soo